doon sidayn ka badan 280 qof oo qaxoonti ah kuwaas oo ka soo barakacay dagaalada si xumaanaya ee ka socda wadanka Yemen waxay maanta soo gaadhay dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera. doontani oo leeyahay ganacsadaha reer Soomaaliland Dahabshiil kaas oo si muwaadinimo leh uga soo samatay bixiyay dadkan u dhashay Soomaaliland ee ku sugnaa wadanka ay dagaaladu naafeeyeen ee Yemen. mas'uuliyiinta dekedda Berbera ay weelinayaan xubno ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku hadlay afka shirkadda Dahabshiil oo iyagu goobtaasi warbaahinta kula hadlay ayaa ka waramay sida ugu diyaar garoobeen qaabilaadda dadkani qaxoontiga iyagoo sheegay in shirkadda Dahabshiil ay qayb laxaad ka qaadan doonto samata bixinta dadka ku sugan wadanka ay dagaaladu naafeeyeen ee Yemen. waxaana mas'uuliyiintani hadaladoodii kamid ahaa maanta halkan waxaa ka soo degaya dad qaxooti ah oo ay sidood doonto Dahabshiil oo kamid ah gaadiidka badda ee shirkadda Dahabshiil. waxaan markaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu halkan anagu ugu nimaadno. waxaanu dadkan ugu talagalay markay soo degaan inaanu raashin u qaybino. waa dad muddo ku soo jiray badda markaa waxaan ugu talagalay baabuurta saaran inaanu raashin u qaybino. raashinka ay cuni lahaayeen iminka wuxuu saaran yahay baabuurtu saaran yahay qolada dekedda iyo madaxda dekeddana aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. marar dambena way soo qaadi doontaa markana qura maaha. markaa si loo dejiyo waxaan kulay aminka aan uga baxayaa in magaranaysa dadka la soo dejiyo si ay raashinka u siino. doontani uu leeyahay ganacsadaha Dahabshiil ee u dhashay wadanka Soomaaliland ayaa noqonaysa doontii ugu horeysay oo ganacsade reer Soomaaliland ahi uu leeyahay isla markaana qaxoonti u dhashay wadanka Soomaaliland ka soo daadguraysay wadanka ay dagaaladu naafeeyeen ee Yemen. Khalid Xasan Kharash, Bulsha TV, magaalada Berbera.